waxaad kala doorataa hooyo iyo aabbo. hooyaday daryeelay tiikantay dunidee igu soo dadaasha dugsigii aqoonta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوان مقال عصب انت هذا مقال كن كسو دوان waxaan ka cabsana hadda channel kana ku cusubtahay inaad subscribe ii saarto si aad u gaaro oo muqaaladii aan hore u sameyn jirnay oo ah mid kaliya dooro aan marti ku ah shakhsiga aad u jeedaan oo ah mid aan wajigiisa ku cusbeen magaciisu waa Cabdullaahi maanta isaga ayaa marti ku ah barnaamijka waayahay isla socod wanaagsan isaga ayaa weydiin doona mid kaliya dooro waxaan arki doonaa waxyaabaha uu dooran doono oo waxyaabaha halkan ugu soo bandhigna mid uu kala dooran doono mid koobaad oo ah inaad kala doorato Soomaaliya iyo England ama Ingiriiska. waxaan dooran lahaa Soomaaliya. waayahay su'aasheen xigta waa su'aasha ugu adag sida aan aniga filayo waxaad kala doorataa hooyo iyo aabbo. wallahi waan jeclaan lahaa labadaba inaan doorto laakiin maadaama challenge ay tahay oo mid dooro kaliya waxaan dooran lahaa hooyo. hooyaday daryeelay tiikantay dunidee igu soo dadaasha dugsigii aqoonta. waayahay okay su'aasheen xigta midkeed dooran lahayd abtiyaashaada ama adeeryaashaada adeeryaal ama abtiyaal. waxaan dooran lahaa abtiyaashii. okay waayahay su'aasha xigta aababka la isticmaalay social media midkeed dooran lahayd Facebook ama WhatsApp. waxaan dooran lahaa Facebook. waayahay okay mid xigta midkeed dooran lahayd madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh. waxaan dooran lahaa Farmaajo. okay waayahay su'aasha xigta midkeed dooran lahayd Asad Xaajiyow iyo Zaki bin Xaaji. waxaan dooran lahaa Asad Xaajiyow. su'aasha xigta midkeed dooran lahayd Wizby iyo Jizzy Boy. Wizby aan dooran lahaa. waayahay su'aasheen ugu dambaysa midkeed dooran lahayd walaalaha oo kula dhashay wiilasha ama gabdhaha midkeed dooran lahayd wiilal ama gabdho. waxaan dooran lahaa labadaba ma dooran karo laakiin mid dooran lahaa gabdhaha ila dhashay. waayahay oo kuma santiin daawashada muuqaalkan aad daawateen waxaan oo balanaa inta ku kulmi doono muuqaalka xiga. bye bye.